guddiga doorashooyinka ardada Soomaalida ah ee wax ka barata dalka Malaysia ayaa sheegay in ay dooran doonaan madax hogaamisa isla markaasna iyagoo xaflad ku qabtay wadanka Malaysia ay ka hadleen qaar ka mid ah u tartamayaasha xilkaasi sida warbixintan ugu soo diray wariyahayaga Azhari. gudoomiyaha ardada Soomaaliyeed ee dalka Malaysia Cabdisalaan Maxamuud ayaa ka warbixiyay doorashooyinka la filayo in maalinta beri ay ka dhacaan caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur. doorashooyinkan ayaa ah u tartamida xilka guddoonka ardada Soomaaliyeed ee dalka Malaysia iyadoona sanad kasta la doorto hoggaan cusub si loo helo wada shaqayn iyo awood qaybsi u dhaxeeya dhammaan ardada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Malaysia. waa kan gudoomiyaha ardada Soomaaliyeed oo sharaxaya shuruudaha laga doonayo musharaxiinta iyo codbixiyaasha. magacaygu Cabdisalaan Maxamuud Cabdullaahi gudoomiyaha ardada Soomaaliyeed ee sanadka tagay doorashada inoo qabsan doonta berito ay bisha tahay 28 in badan bay kaga gudbintaa doorashooyinka hore haddii ay tahay shuruudaha lagu xiray qofka murashaxa iyo haddii tahay shuruudaha lagu xiray dadka codeynaya labadaba waxa codeyn doona berito ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Malaysia oo qura annagoo eegi doona baasaboorkooda iyo ID-gooda labadaba waxa kale kamid ah waxyaalaha la notice gareyn karo ayadoo ay ka badan yihiin murashaxiinta sanadada hore waxa dhici jirta inay soo sharaxaan labo ama in ka yarbo hadda waxa dhacday sanadkan inaad aragtaan inay soo sharaxeen 4 arday oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia ku nool waxaan ku fasiri karnaa ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia oo u taagan inay qabtaan mas'uuliyadooda ku aadan bulshooyintooda waxayna positive u tahay ku dayashanay in mudan tahay ardayda Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka. ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa doorashada berita dhici doonto in sidii loo qorsheeyay u qabsoomi doonto ayna dhici doonto inuu ku soo baxo qof ardayda Soomaaliyeed ay ku wada qanacsan tahay. dhanka kale waxa u suurta gashay TV-ga caalamiga Somali Channel inuu weydiiyo aragtidooda qaar ka mid ah musharaxiinta ugu firfircoon ee u tartamaya xilka gudoomiyenimo ee ururka ardada Soomaaliyeed ee dalka Malaysia. bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo bahweynta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xigta waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo bahda saxaafadda gaar ahaan TV-ga caalamiga ee Somali Channel TV runtii fursadan qaaliga ah na siiyay. waxaan rabaa magacayga inaan ku hormaro magacayga waxa weeyaan Mawlid Ahmed Maxamed waxaan hay arday dhigta jaamacadda University Malaya waxaan diyaariyaa Master of Public Administration isla markaasna waxaan hay musharax u taagan jagada gudoomiyenimada sanada 2012 ilaa 2013 ururka la yiraahdo Somali Student Society in Malaysia SSM. haddii ilaahay idmo sanadan waxaan jeclahay inaan ku soo siyaadiyo aniga teamkaygu wax qabad ay ka mid yihiin seminaaro tababaradaas oo aan ka xusi karo leadership quality management, time management, conflict resolution, risk management. run ahaantii iyadoo ay bixin doonaan khubaro aan kala soo heshiilay markii ugu horeysayba targetka aan rabno inaan soo saarna waxay tahay 300 ilaa 400 oo arday inay sanad aan hayno haddii ilaahay tababaro qaataan. waxyaalaha aan isleenahay ku soo kordhiyay ururkan waxa kamid ah inaan qabano forum debates dad cilmiyeed sida ardada loo horumarin lahaa sidii aqoonta looga faa'iideysan lahaa. runtii dalkan waa la iska joogaa wax badan lagama faa'iideysto. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Malaysia. waxaan uga intaas kadib waxaan u mahad celinayaa bahda saxaafadda oo na siisay waqti qaali ah oo aan kala qayb qaadano barnaamijyada jira. intaas kadib haddii aan ka hadlo taariikhdayda magacaygu waa Yaasiin Axmed Sheekh Aadan kana mid ah ardayda jaamacadaha reer Malaysia jaamacadda College University Islam Selangor Bachelor of Accountancy last year. waxaan u taaganahay doorashada musharaxan ahay waxaan u taaganahay doorashada ururka ardayda Soomaaliyeed ee reer Malaysia Somali Student Society Malaysia. waxaan aaminsanahay inaan wax badan ku soo kordhi karo sanadkan haddii aan ku guuleysto xilka doorashada ee reer Malaysia. waxyaalaha aan u baahanahay inaan ku soo kordhiyo sanadkan waxaa ka mid ah number 1 inaan ka dhigno registered urur ah ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia maadaama uu ka register gareysnayn wasaaradda waxbarashada ee Malaysia inaan ka dhigno urur registered ah. qodobka labaad waxaan rabnaa inaan organize gareyno educational trip oo ugu talagalnay in ardayda isdhexgalka bulshada iyo ardayda waxaas dhan lagu abuuro. isku soo duuba markii ugu horeysay oo lala caynkan oo kala laga dareemo musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyenimo ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waxaana adag in si fudud ku soo baxo hoggaan cusub oo majaraha u qabta hanaanka ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Malaysia. Ahmed Abuukar Azhari
telefishinka caalamiga Somali Channel Malaysia.